todobaadyadu qiimo waaweyn oo dhanka cirka Israa'iil ay ku dishay hogaamiyihii Xisbullah Xasan Nasrullah iyo hogaankii kale waxaa soo baxay xogo cusub oo si faahfaahsan u soo bandhigaya sida ay wax u dhaceen. muuqaal laga soo duubay goobta lagu dilay hogaamiyihii Xasan Nasrullah ayaa muujinaya qaraxyada oo dhulka la simay dabaqyo dhaadheer oo badan oo ku yaala xaafadda ay dadku ku badan yihiin ee loo yaqaan Daaxiya ama daanta koonfureed ee magaalada Beirut. dhismayaal kale ayaa dhulka hoos u degay waxaana ku hareereysnaa shub iyo biraja jaban oo daadsan dhul qiyaas ahaan dhan 100 mitir ama garoon kubadda cagta lagu ciyaaro leeg. inkastoo Baatikonku uusan xaqiijin haddana senator Mareykan oo madax u ah guddiga difaaca ayaa sheegay in duqeymaha Beirut loo adeegsaday bam 2000 oo bond ah una dhigma 900 oo kg kaasoo Mareykanku leeyahay. waxayna qaar ka mid ah falanqeeyaasha weeraradan sheegayaan in Bunkers Buster ama bombooyinka duloliya dhufaysada ee Mareykanku ay ku lug lahaayeen weerarkii ugu weynaa ee ka dhacay Beirut tan iyo bilowgii khilaafka hadda ka socda bariga dhexe ku dhawaad hal sano ka hor. warbixinta waxaynu ku eegaynaa sida ay wax u dhaceen nooca gantaalada la isticmaalay ee lagu dilay hogaamiyaashii kooxda Xisbullah kaasoo uu ka mid yahay hogaamiyaha awoodda badnaa ee Xasan Nasrullah taas oo geysteen diyaaradaha Israa'iil oo adeegsanaya bombada loo yaqaano Bunkers. maxaan ka naqaan bombooyinkanna moogtahay macaamiil in Amal Bank ku diyaariya adeegyada Mastercard oo kala Classic, Platinum, iyo World Dealed ka xulo oo ka qaado xarunta kuugu dhow kaarku waa caalami bangiguna waa Amal. sida ay ku warantay Bloomberg warshadda hubka soo saartay ee ku taala gobolka la yiraahdo Oklahoma ee Mareykanka ayaa 3 jibaartay wax soo saarkeeda bombada ugu weyn ee Mareykanku haysto ee aan ahayn nukleerka. bombadan oo ka tirsan bahda la yiraahdo Bunker Busters ayaa ahayd tii ay Israa'iil ku dhufatay dalka Lubnaan gaar ahaan magaalada Beirut iyadoo isticmaashay labadii jimce ee la soo dhaafay lana aaminsan yahay inay ku dhinteen saraakiishii ugu badnayd ee Xisbullah. bombadan oo magaceeda u diiwaan gashan uu yahay Mor GBU 57AB waa bomba aad u culus lehna awood dhamaysan oo si rasmi uga dhex dusi karta dhismayaasha adag ku burburin karta nooc kasta oo darbi ama dhismo wax iska caabin loo sameeyo. waana tan ugu weyn ee Mareykanku haysto oo aan ahayn madax nukleer. culayska ay qaadi karto ayaa dhan wax ka badan 30,000 oo bond waana wax ka badan 12,000 oo kg. waa qiyaasta madfac ka culus badan 12 tan oo rarana. sifooyinka uu gantaalkan bombada burburiyaha ay qaada waa inay dherer ahaan tahay 20 feet iyo ballaca 30 inji. culayska ayaana dhan sida aan hore u sheegnay wax ka badan 30,000 oo bond. qiyaasta culayska lagu cabiro bombadan waxa xambaaro oo laga soo tuuraa gantaal kale waxaana loogu talagalay in lagu dhufto lagu burburiyo xarumaha dhulka hoostiisa. waana mid leh liishaan saxan oo inta badan si sugan wax u burburiya oo hadafkiisa gaara. tilmaam gaar ah oo aan leeyihiin ayaa inay yihiin kuwa dijitaal oo